kuna soo dhawaada barnaamijkeeni rayga dadweynaha oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable TV. barnaamijkeena rayga dadweynaha oo alaabo ku soo qaadano afkaaraha kala duwan ay qabaan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa. qofka ugu horeeya iyo isagoo magaciisa ku bilaabaya daawasho wanaagsan. magacaygu waa Faatiham Cabdilaahi. kulay rayga dadweynaha waa laga hadlayaa waxaan jecelahay inaan ku hadlo raygayga waxaan jecelahay inaan ka hadlo runtii dawladdu waxyaalo badan bay imika qabatay. mashaariicda ugu ballaaran ee qabatayna waxa kamid ah biriishkii Hargeysa oo ay furtay maalintii dhaweyd madaxweynuhuna uu furay. runtii horta waa wax qabada taaban karayo. wasaaradda maaliyaddu man maanta ka hadlayaa in badan baan ka hadlay madaxweynaha. waxaan jecelahay runtii inaan ka hadlo maanta wasaaradda maaliyadda oo ah meelaha ugu ballaaran ee dakhligu ka soo baxo. wasaaradda maaliyadda runtii dhaqaale badan horta way urursay wasaaradda maaliyaddu waan ku taageersanahay waana runtii aan jecelahay inay maaliyaddan ay urursay inay mashaariic badan dalka ugu fuliso waa mid horta aanu ka sugayno. waxaan jecelahay inaan ka hadlo mashaariicda ay fulinayso dadkii shaqo la'aan badan baa haysa dhibaatooyin badan baa haya marka waxaan jecelahay runtii inaan idhaaho mashaariicdiina soo fuliya oo soo gudbiya. anigoo magacaygu yahay Kaysa Cali Xuseen waxaan ka hadlayaa halkan rayga dadweynaha. waxaan leeyahay horta ilaahay cirka madar khayr qabahay naga siiyo. ilaahay roob doonta aan tukanay ilaahay noo aqbalo. ta kale waxaan leeyahay horta wadanku nimco iskaga jira. haba dadka cabadnaan leeyahay allun baa waxin siin kare cidinama siin karto. ilaahun baynu gacmo weyno waa alle. qaar baa hadloo yiraahda kuleel bay dawladda nala soo gashay maxay bay nala soo gashay war nimco iskaga jira ilaahun baa wax bixiya cid kale wax bixisa ma jirto. war gobolka Sool ee maalin walba mid lagu gowracayo waxaan leeyahay waa reer Soolow waxaan leeyahay ay bislaato tani way tagtay haba calaad hana gashanay kolba mid meel ku gowracinay war walaalama noqona oo wax ma wada cuna kala tagi maynay. war xisbiyo badan uma baahnaa adeer waxaan ugu baahnayn war horta hal ictiraaf ma helay dadku kala qaboobay ma qabowna markaynu ictiraaf helaynu degnay roobku inoo degay aynu 5 sano horta adkaana dawladnimada sidii tii 60kii inaan la yaacinay marka doorashada iyo xisbiyada hal furo laakiin saynaga wali adkaanba hadduu mid walba yiraahdo anna xisbi baan sameynaya oo jilib loo sameeyo soo ku waalan mayno. waarta shanta inoo dhamaato dawladnimada aynu baranno waxay tahay oo markaynu dawladnimada baranaynu dhaqaaqnay sida loo hogaansamo aynu baranno markaas aynu ictiraaf leeyno xisbiyada sameyn doona uma baahnin imika war wax waliba nabadgelyada qiimo ku leeyihiin adeer nabadgelyo hal ilaaliya leh. Axmed Xasan Cabdilaahi kana tirsan arday dhigata jaamacadda Lucy horta aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta ka qayb qaato. runtii waxaan ka hadlayaa horta arrimahan deela ku saabsan amniga lagu dhaleecaynayo wadanka amba dawladeena cusub lagu dhaleecaynayo anu waxaan leeyahay horta waxaan qabaa in dagaalada ka dhacaya amba ka shaalay amba bariga in aanay dawladdu ka mas'uulahayn ee tahay qadar ay la kulantay. runtii waxaan soo jeedinaa waalahayga bariga waxaan nahay dad waala miran ku kala tiimeeno waxaan runtii leeyahay aan dhibaato joojino. midda kale waxaan ilaahay ka barnaa inuu roobku ilaahay noo keeno. midda kale haddaan ka hadlo xisbiyadan la furayo amba xisbiyadan dooda socota maalba ee nidaamka xisbiyada cusub runtii waxaan leeyahay horta wali wadanku soo saaxiibka uu sheegay wali wadanku kuma istaagan cidbaysi. runtii dawladda cusubna waxaan ka rajaynayaa in waqtiga markuu dawladdu ay istaagto insha Allah xisbiga cusub la furo doono. runtii maanta waa adag tahay in la furo xisbi cusub amba xisbi cusub waa istaagay xisbi wali ayaan loo taaglanay marka aanu nidaamka xisbiga cusubada waxaan qabaa in horta imika la joojiyo oo dib loo dhigo bayn la furo. runtii waxaan ilaahay ka bariyaa in uu ilaahay naga qaboojiyo dhibaatooyinka ka socda dadweynahana waxaan sheegayaa in aanay dawladda aanay ku dhaleecayn waayo qadarku ilaahay qoray uu soconaya runtii anu waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliya soo jeedinaya in amniga iyo nidaamka